waad qaldan tahay deef mar labaad ayaan ku leeyahay waad qaldan tahay maya aniga ma khaldani adiga ayaa khaldan weligaana waa khaldaneed waayo jacaylka aad ii qabtid ayaa halkan maanta ku keenay deef maya aniga adiga kuuma soo laaban lagamana yaabo inaan kuu soo laabto waayo waxaan halkaan u imid aniga inaan kuu sheego inaan ninkayga xalaasha uur u leeyahay taas ayaan u imid aniga haa hadda soo ma ogaan inaan ku iloobay adigana iska ka iloow waa runtaa adiga qalbigayga kama bixaysid deef kama bixaysid laakiin noloshayda ma ku soo biiri kartid hal qof oo keliya noloshayda xaqule waana raam waa ku baryaa aadaan u jeclahay ninkaas noloshayda ha iga baabi'in mustaqbalkayga adigoo dhisaya meeshaan iskaga tag taas ayaan kaa codsanayaa isaga tag meeshaan aniga waan guuldarraystay sidees ku dhacday gabar aan xad dhaaf u jecelahay jacaylkeeda dhaawac iyo murug mooye wax kale aan ka faa'iidan sidees qalbigayga ugu dhaadhiciyaa aniga inay sii jecleen oo ay jeceshahay qof kale sidee ugu dhaadhiciyaa anigoo wax walba og haddana maxaan isagayna tiraa maxaan nafteeda been ugu sheegaa anigoo guusha qaaday ayaan haddana guuldarraystay iyagoo guuldarraystay ayay haddana guulaysteen yaa ku yiri waad guuldarraysatay yaase ku yiri anigaa kaa guulaystay labada ninoo ragga xiriir noocaana maahane xiriir kale ma jira miyaa dhex mara inaan tartanno inaan isficilno inaan islugoyno taas miyaa noo qoran aniga kolleyba cadowgayga kuma arko waxaa jiray in adiga anjeliga kulmi jirtay inaad saaxiibo wanaagsan ahaydeen in qalbigiinuu aad isugu soo dhowaaday inaad riyo wadaagtay waan ogahay inaad rajo wadaagtayna waan ogahay laakiin hal mar ayaa nasiibkeenni xumaaday oo mashaqo idinku habsatay oo wax idin naxariistana aad weyseen soo maaha aad iyo aad ayaan uga xumahay war sideed ku fikirtay inaan cadowgaaga noqdo sideedse ku fikirtay inaan waxaan kugu sameeyo adigoona wax dembiya lahayn haddii aad dembi gashana kaas wuxuu noqon karaa inaad gabadhan jeclayd jacaylkana dembi maaha waa wax wanaagsan adiga wax dembiya ma gelin cidna dhibaato ma geysan laakiin midaan ku faa'iideeya deef adduunyadan rag iyo dumar badan ayaa ku wada nool kulligoodna waxay jecel yihiin calafkoodana ayay ka dhistaan laakiin go'aankaas markay gaareen waxay moogyihiin annagu dadaalka un baan leenahay mooye awoodda way naga sarraysaa calafkeennana annaga ma xukunno kulli haddii sida la wada aamin lahaane weji xumana ma dhex marteen dhibaatana isuma geysaneen aan wada sabarno waa run raam run ahaantii aniga waan ogaa calafka inuu jiro balse jacaylkaan gabadhaan qabo
ayaa wax walba ii loo siiyey weligeyna waxaan u haystay jacaylka inuu wax walba ka awood badan yahay laakiinse maanta waxaan ogaaday jacaylka inuu koban yahay calafka ayaa weyn raam hadalkan ku hadlaayo waxaa iga keenay jacaylka aan anjali u qabo cid u qabto ma jirto xitaa adiga uma qabtid mana u malaynaya jacaylkaan u qabo inuu jiri doono qof u qaadayo gacanteeda waxay nasiib u yeelan ayay gacantaada nasiib u yeelatay qof kasta nasiibkiisana wejiga ayay igu yeelaan hadda aniga maxaan ku baabi'iyaa maxaanse khasaare kuu geystaa saan khasaare kuu geysanayo anigaa khasaaraya oo baaba'ayo raam anigana magacii waa deefne markii la fasiro waa qof daacada laakiinse aniga waan qaldoomay waxaana ku qaldoomay waxaan califkayga ahan ayaan doonayay xoog inaan ku dhaxsado taasi suurtagal maaha raam macnaheedna waa bini aadan adigana waxaad u dhaqantay sida bini aadanka oo kale marka sidee kaa guulaysay